waxaan daawadayaal halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxaa qayb ka ah khubroorsi xoogan oo ka socda deegaanada Soomaaliland iyo qalalaase ka taagan Xasan Sheekh Maxamuud oo war ka soo saaray wacadna ku maray inuu qaadi doono tilaabo degdeg ah laftigaran iyo Itoobiya oo ku heshiiyay in xabsiga loo dhaadhiciyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur hadduu isku dayo inuu socdaal ku tago deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladda Masar oo saldhig si degdeg ah uga furanaysa gudaha Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan guluf colaadeed oo ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninkii caayay Quraanka Kariimka Salmaan Rushdie oo weerar toogasho lagu qaaday qodobadaas iyo qodobo kale oo daasanayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garow haddii ay tahay markii kugu horeysaan soo booqato magana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ka horeynaa xaalka Soomaaliland ayaa maraya allow sahal xukuumadda iyo mucaaradku waxay bilaabeen inay huburuursi xoogan galaan iyadoo dhinacyada kala duwan ay iskugu hanjabayaan inay weerar isku qaadi doonaan gacan ka hadal iyo weerar rumaysan ayaa laga cabsi qabaa inuu dhaxmaro xukuumadda Soomaaliland iyo mucaaradka مليشيا بلديو la sheegay inay taabacsan yihiin Cabdiraxmaan Cirre iyo Faysal Cali Waraabe iyo ciidamada xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa laga cabsi qabaa inay fooda istaraan dowladdu wali waxay ka sii socdaan deegaanada Soomaaliland xaaladda ayaa maraysa mid aan la qiyaasi karin wararkuna waxa ay tibaaxayaan in dadka qaarkiis ay cabsi ka qabaan in lagu dagaalamo wali waxa laga magaarin xaalka Soomaaliland waxayna tan ka dhigan tahay in markii ugu horeysay Soomaaliland ay gali doonto gacan ka hadal dagaal madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa mucaaradka ku eedeeyay inay abaabulayaan inay burburiyaan Soomaaliland halka mucaaradkuna ay sheegaan in uu yahay Muuse Biixi Cabdi kaliya talis ayna doonayaan inay xukunka si xoog ah uga qaataan Mareykanku waxa uu cad ku maray inuu kaalmada dhaqaale ka jari doono dibna u gala laaban doono taageerada uu la garab taagan yahay dimuqraadiyadda Soomaaliland wuxuuna sheegay inay ka shaqayn doonaan mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland qalalaasaha ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya ayaa dhankooda war ka soo saaray xaaladda cakiran ee Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku baaqayaa madaxda Soomaaliland iyo mucaaradku inay si wada jir ah uga arrinsadaan inay xiisada dejiyaan xal siyaasadeed ay gaaraan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay ilaalinta badqabka dadka sidoo kale waxa uu ku baaqayaa inay muhiim tahay in dhinacyada kala duwan ay ka shaqeeyaan sidii si nabadgelyo loo wada hadli lahaa doorashada ay ku dhici lahayd Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu amaanay doorashooyinkii horeeyay ee ka dhacay Soomaaliland wuxuuna sheegay in la joogo waqtigii ay dadku wada hadli lahaayeen oo ay dhamaysan lahaayeen xiisada deegaanadooda ka taagan sidii xal looga gaari lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacad ku maray in laga maarmaan ay tahay in la qaado tilaabo degdeg ah oo ku wajahan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisada ka taagan Soomaaliland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa madaxweynaha ku raacay go'aankiisa wuxuuna sheegay in dadka reer Soomaaliland uu ku baaqayo in wada hadal iyo xal degdeg ah ay galaan dowladda Itoobiya iyo laftigaran ayaa lagu soo waramayaa inay wada hadal ka yeesheen sida laga yeelayo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo wafdi uu hogaaminayo oo la sheegay inay qorsheynayaan dhawaan socdaal ay ku tagaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kala wareegyo sirdoon oo aynu ka helay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in sirdoonka Itoobiya iyo madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen qorshaha Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ee ku wajahan deegaanada Koonfur Galbeed maamulka uu hogaamiyay Cabdicasiis Laftigareen ayaa aaminsan in dagaalka filla Soomaaliya ay ku qaadi doonto maamulka Koonfur Galbeed in loo soo mari doono Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ku dhawaad 4 sano dhibana u ahaa Laftigareen wuxuuna dhawaan sheegay in deegaanada maamulkaas uu dib ugu laaban doono asagoo dadka u sameyn doono wax uu ku yeeray dib u heshiisiin wuxuu sidoo kale sheegay in xukunka maamulka Koonfur Galbeed loo baahan yahay in si nabadgelyo lagu kala wareego oo doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo sirdoonka Itoobiya iyo madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka wada xaajoonayaan inay suurtagal tahay in mar kale xabsiga loo dhaadhiciyo Mukhtaar Roobo hadduu isku dayo inuu ka soo dego garoomada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed inta badan deegaanada gobolada Baay Boqol waxa ku sugan ciidamada dawladda Itoobiya kuwaas
oo si rasmi ah uga amar qaata maamulka koonfur galbeed gacan saarna la leh ciidamada AMISOM waxaana la rumaysan yahay haddii filla Soomaaliya ay isku daydo in deegaanada maamulkaasi ay u dirto wafdi uu hogaaminayo Mukhtaar Robow inay ka dhici karto carqalad xooggan oo Mukhtaar lagu xiri karo deegaanada maamulka koonfur galbeed maadaama Itoobiya ay awood military u leedahay inay xabsiga u dhadhiciso ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa Itoobiya ee ku sugan garoomada deegaanada gobolada Bay iyo Bakool waxa lagu soo waramayaa in arrintan la faray inay u diyaar garoobaan si ay uga hortagaan waxa loogu yeeray faragelin ka timaada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku wajahan maamulka koonfur galbeed haddii Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur uu heshiis la'aan ku tago deegaanada koonfur galbeed waxaa dhici kara wax walba oo sababi kara dhibaato aan la sii saadaalin karin ayuu yiri mas'uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhawaano ku dhawaaqay in la qaadi doono guluf colaadeed oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Masar ay saldhig ka furanayso gudaha Soomaaliya si ay qayb uga noqoto howlgalka military ee ka dhana kooxdaasi dowladda Masaaridu waxa la sheegay in ciidamada qaranka ay ku taageeri doonto ciidamo dhinaca dhulka iyo dagaalo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradeedu ka qayb qaadan doonaan ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu taageero ballaaran u raadiyay dhawaan socdaalkii uu ku tagay wadanka Masar ciidamada Soomaaliya iyo sidii loo garabsi lahaa gaar ahaan dhinaca cirka oo uu doonayo in diyaaradaha dagaalka dowladda Masar ay qayb ka noqdaan howlgalka military ee lagu soo afjarayo kooxda Al-Shabaab oo qayb ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku sugan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si uu hirgeliyo qorshihiisa ku saabsan inuu helo gacan caalami ah oo ka dhana kooxda Al-Shabaab waxa lagu soo waramayaa in dowladda Masar ay cusatay saldhig military laga siiyo gudaha Soomaaliya taasoo dhawaan si rasmi ah u hirgeli doonta ila wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijiyay in dowladda Masar ay ku guda jirto sidii u fuli lahayd qorshaheeda la xiriira in gudaha dalka ay saldhig military ka furato kadibna ay qayb ka noqoto gulufka colaadeed ee ka dhanka ah kooxda warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu sheegay in 6 tiir ee ugu muhiimsan ee xukuumaddu ay ka shaqeyn doonto oo qayb ka yahay dib u xoreynta dalka isla markaasna dalka oo dhan kooxda laga saari doono taas oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud siinayso sidii dalka looga xoreyn lahaa kooxda Al-Shabaab oo qayb badan oo kamid ah ku sugan dalka Kenya wali natiijada ayaa waxa ay maraysaa meel gabagaba ah iyadoo warar kala duwan iyo khilaafyo la iska soo horjeedana ay ka soo baxayaan gudaha dalka Kenya iyo dhinaca codaynta labada nin ee ugu sareysa doorashada madaxtinimada ee wadanka Kenya Raila Odinga iyo sidoo kale William Ruto ayaa labaduba sheegayaan in midka kale ka guuleystay in kasoo wali guddiga doorashadu aysan kala saarin cid sida rasmiga u ah madaxweynaha dalka Kenya codaynta ka dhacday qaybo badan oo ka tirsan wadanka Kenya dadku waxa ay liibteen codadkooda sida la sheegay badi dadka isdiiwaan galiyay halka dadka qaarkoodna aysan guryahoodaba ka soo tageen William Ruto iyo xisbigiisa oo iskugu yeera dadka aan hantida lahayn isla markaasna baahan waxa ay sheegeen in la doonayo in doorashada lagu shubto iyadoo warbaahinta tabinteeda hoos loo dhigay si musuqmaasuq loo sameeyo wararku waxay sheegayaan in dadka loogu yeero awoodda qarsoon ee dalka Kenya ee loogu yeero milkiilayaasha dowladda Kenya sida ganacsato iyo mas'uuliyiin sarsare oo dowladda dalka Kenya si dadban u maamula inay doonayaan in xilka uu ku guuleysto Raila Odinga kaas oo iminka u muuqda in dhinaciisa ay ku raaci doonto maadaama guddiga doorashooyinkana la aaminsan yahay inay gacanta ku hayaan kooxda milkiilayaasha dalka Kenya warka ka daawanaysan dunida TV waageynta sidaas